Xildhibaanada mucaaradka ee ka tirsan dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa bilaabay mooshin ka dhan ah gudoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe. Xildhibaanadan ayaa waxa ay sheegeen in uu ka soo horjeestaba inta badan aragtidooda siyaasadeed. Xildhibaanadan mooshinka diyaariyay ayaa waxa ay gaarayaan 103 mudane, kuwaas oo markaasi sheegay in gudoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya ay ku sameynayaan wax la yiraahdo xilka qaadis. Mudanayaashan ayaa waxa ay markaasi si toos ah u sheegeen in markaa gudoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe oo inta badan uu ka soo horjeesto aragtidooda siyaasadeed. Mooshinkan ayaa dhanka kale yimid kadib markii uu fashilmay kulankii maanta ee baarlamaanka, kaasi oo looga markaasi doodayay wax ka beddelka dastuurka dalka, iyadoo isla markaana xildhibaanada qaar ee mucaaradka ay ka soo horjeesteen. Golaha Shacabka ayaa maanta waxa uu martigeliyay buuq, gacan ka hadal iyo sidoo kale fowdo, iyadoo isla markaana qaar ka mid ah xildhibaanada mucaaradka ee halkaasi ay ku yeerinayeen firimbi, iyagoo isla markaana ka soo horjeedaba wax ka beddelka dastuurka dalka. Dhanka kale, xildhibaanada mucaaradka ayaa wado mooshin ka dhan ah gudoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe.